الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 29 bisha Abriil maalin talaada waxa warqad maamul go'aaneeda soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyuhu markii uu arkay qodobka afraad ee dastuurka ku meel gaadhka ah kaas oo xeerin haya sareynta dastuurka gudoomiyaha sidoo kale markuu arkay qodobka 33aad ee dastuurka ku meel gaadhka oo xeerin haya go'aanada maamul ahaaneed inay ahaadaan kuwa ku dhisan sharci ku qotoma cadaalad gudoomiyuhu markii uu arkay qodobka 59aad faqradiisa koobaad xarafkiisa D dastuurka ku meel gaadhka ah iyo qodobka 8aad faqradiisa afraad ee xeroosaadka golaha shacabka kuwaas oo sheegaya in sababaha lagu luminayo xubinnimada golaha tahay maqnaansho muddo laba kal fadhiya oo xiriir ah markii uu arkay qodobka 50aad faqradiisa labaad xarafkiisa D markuu tixgeliyay tala soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka markuu tixgeliyay dareenka guud ee xubnaha golaha shacabka wuxuu go'aansaday gudoomiyaha golaha shacabku qodobka koobaad inuu dib ugu celiyo guddiga xeroosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada arinta la xiriirta kursiga nambarkiisu yahay 201 ee uu ku fadhiyo xildhibaan Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib si ay uga soo tala bixiyaan si waafaqsan qodobka 50aad faqradiisa labaad xarafkiisa D ee xeroosaadka golaha shacabka qodobka labaad ee gudoomiyuhu tixgeliyay in guddiga xeroosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada golaha shacabka ay tala bixin dib ugu soo celiyaan kulanka guud ee golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur gudoomiyaha golaha shacabka wabillahi tawfiiq